intaas jawaabteedu fulinteedu idinka la idinka rabaa laakiin hal mid ayaa idin hortaagay inaad taariikhda hore ku bedeshaan taariikh cusub in kulligiin aad diidaan cid walba oo dawladnimada ka hor timaada in kulligiin aad ka hormarisaan danta Soomaaliyeed danta gaarka ah ugu dambeyntii waxaan leeyahay shaqada hadda aan bilownay waa shaqo bilow ah waa ogahay in haddii xal Soomaaliya uu imaanayo 27 sano inay waqti dheer tahay laakiin haddii ay niyadda idinkaga jirto weligeed waxaanu sidaan ay ahaan jireen sidaan aan iska ahaanaynaa waxaan rabaa inaa ogaataan 10 sano ka hor xagee baan joognay 5 sano ka hor xagee baan joognay 9 bilood ka hor markii la ansixiyay xukuumaddan xagee baan joognay maantana xagee baan joognaa waxaasoo dhan waa tusaalooyin iftiin ah oo idin sheegaya in ay rajo jirto laakiin mar walba oo dalkani uu fursad leeyahay ciddii ka shaqayn weysa inay qayb ka noqoto in looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed waxaad ogaataa inaad noqonaysid adiga laftaadu qof dambi ku leh lagulana xisaabtami doono mustaqbalka yacni ilaahay kulligeen wuxuuna weydiinayaa fursadaas ummadda Soomaaliyeed ma uga faa'iideysan dawladnimadu sideedaba go'aan walba oo dawlad ay gaarto waa khalad marka lagu fiiriyo indhaha qof walba go'aan walba oo la gaaro waa khalad marka lagu fiiriyo indhaha shakhsi walba sababtoo ah qaar baa ogol qaar baa diidan su'aasha jirta marka waxay tahay ma inta badan ayaan raacnaa oo Soomaalinimada iyo dawladnimada iyo mustaqbalka ummadan ka shaqeynaa mise inta yar ayaa mar walba dawladnimada isbaaro u dhigata haddii aan rabno inaan raacno inta badan marka lagama naqan karo dhexdhexaad ma oognaa Soomaalinimada mise waxaan ku jirnaa dhaqankii hore lagama aamusi karo mustaqbalka iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed lama aqbali karo inaan niraahdo markaan tallaabo hore u qaadnaba inaan 2 tallaabo gadaal u qaadno wasaaradda maaliyadda iyo dadkay halkan isugu keentay oo ka kala socda dhammaan hay'adaha kala duwan oo ay ku jiraan ganacsatada waxaan idin leeyahay intiina halkan isugu timid waa inaad ka shaqaysaan inaan dhisno tiirka udub dhaxaadka u ah mustaqbalka dawladnimada taasuna waxay tahay kobcinta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin مدير رئيس الوزراء بعد ما صنتهاي وحن جعلها هنا waayahay ra'iisul wasaaraha wuxuu bixin doonaa awaalmarino isaga iyo wasiirka maaliyadda waxaan ka codsanaa wasiir dawlaha maaliyadda iyo wasiirada kalena inay la bixiyaan awaalmarinada halkan ay soo istaagaan waxaan shaki ku jirno xaqiiqa shaqada wasaaradda maaliyadda ay qabatay oo aan maanta bandhigeeda u joogno in qof keligii uusan qaban ay tahay shaqo wasaaradda dhan ay wada qabatay si marka looga faa'iideysto in inta ay yimaadaan waayahay qofka ugu horeeya dabcan aan u yeerayo wuxuu noqon doonaa maxamed xuseen ciise dabcan waxa uu ku mutaystay oo holwanaag laakiin waxqabadkii muddadii sanadka hadda ah sanad ma dhihi karno waa in ka yar sanad
maxamed wuxuu nasiib u yeeshay in waxqabadkiisii lagu abaalmariyo oo ra'iisul wasaaraha uu guddoonsiiyo abaalmarinta wasaaraddu ugu talagashay qofka labaad ee loo yeerayo waxa uu noqonayaa axmed cabdulaahi samow axmed waxa uu ku mutaystay oo wasaaraddu ay ku faahfaahisay in si gaara uu saameyn ugu lahaa kororka dakhliga dalka ee kordhay waxa uu ka shaqeeyaa ama si gaara wasaaraddu ugu qaabishan yahay dekedda muqdisho axmed nasiibka kaabat qofka kale saddexaad aan u yeeray wuxuu noqonayaa axmed cabdi aadan laakiin magaciisa naanastiisa ka dheera u malaynaya oo dadku aad ay u garanayaan waa iraad marka iraad sheegay waa la saabiyey iraad waxaan ku xasuustaa aniga soo miisaaniyadda baarlamaanka inta wasiirka u soo raaca faahfaahiya qofka saddexaad ee aan u yeerayo waa qofka afraad ee raadaya caadil gorfaa gaarane caadil laakiin caadil howlwadeennada wasaaraddu ka mid yahay balse waxaan u malaynayaa magaca aabbaha xoogaa aad kaaga caansan xildhibaan gorfaa gaarane waxaan u malaynayaa aad loo garanayo caadil dabcan waxa uu ka mid noqday xubnaha howlwadeennada ee wasaaradda maaliyaddu ay soo xulatay nasiib wacan horumar intaa ka badan insha allah qofka kale wuxuu noqonayaa idris nuur looyaan waa uu maqan yahay laakiin waxaa u guddoomaya dubad oo isna ka mid ah howlwadeennada wasaaradda gaar ahaan si gaara howlwadeennada firfircoonidooda ee sanadkii hadda in ka yar sanadka aadka u muuqato hal qof aa haray laakiin hadda inay sheegteen waxaa haray qofka ugu dambeeya oo ah jacfar maxamed axmed jacfar uu maqan yahay cabdullahi aduu laftirkaa u qaad cabdullahi laakiin xagga soo fiiriya intaas waxay ku idlaayeen abaalmarinadii wasaaraddu ay soo xushay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo madaxda kale halkan waxaa loogu talagalnay inta ka baxaan qaybtan markay dadka salaamaan kadib martida kalena halkaa ay ka baxaan qadadii oo naga yara daahday ayaan geli doonaa waxaan u mahad dadka Soomaaliyeed ee nala socday gudaha iyo dibadda ee toos nagala socday telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho oo toos u tawinayay wasiir Beyle wasiir Abdulrahmaan Ducaale Beyle wasiir aadi shaqaalaha waaya aan wada qadayna marka dadkana daawanaya iyaguna aad u mahadsanyihiin intana dhageysanaysa iyo howlwadeennada telefishinka ee kaamirooyinka maanta oo dhan noo hayay iyo bartilmaqaanada iyo inta kale ee meesha la joogta si gaar ah saaxiibkay Cabdullaahi Suldaan oo wasaaradda maaliyadda ka mid ah laakiin si gaar ah ay la shaqeynayay salaamullaahi calaykum dhammaantiin waan idin mahad celinaya insha Allah